dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran waxa uu galay toddobaadkii saddexaad madaxweyne Trump oo hadda maalmo ka hor la hadlayay taageerayaashiisa xilli uu ku sugnaa magaalada Cincinnati oo gobolka Ohio waxa uu yiri maalintii koobaad ayaanba dagaalka ku guuleysanay maalintii koobaad 28 February ayay ahayd haddana waxaa la marayaa 16 Maaj marka dagaalku muxuu u sii socdaa oo toddobaadkii saddexaad u galaya haddii Mareykanku uu guuleystay laakiin arrintu sidaasi maaha lacagta ku baxaya dagaalkan Mareykanka uga baxaysa 16 bilyan ayaa hadda kor u sii dhaaftay cadaadiska gudaha ka haysta oo dhinaca sicirka shidaalka oo sare u sii kacaya iyo waliba qaar kamid ah taageerayaashiisa muxaafadka ah oo ku soo jeestay ayaa waxa ay sii hurinaysaa in madaxweyne Trump uu ku qasban yahay in dagaalkan uu soo gabagabeeyo laakiin madaxa ayuu ciida ka cishanaya oo ma doonayo in uu yiraahdo waan guul dareysanay laakiin hadda waxa la leeyahay xitaa aqalka cad gudihiisa muran weyn ayaa ka taagan oo arrintan waa lagu kala qaybsan yahay warhan la ka soo gabagabeeyo dagaalkan waan ku qaldanay iyo sidoo kalena hal la sii wado ayaa ka dhex socota laakiin madaxweyne Trump oo xalay dib ugu soo laabanayay Washington isla markaana fasaxiisa sabtidii xadda ka soo laabanayay oo Mar-a-Lago uu ku tago ayaa waxa uu diyaaradda Air Force One kula hadlay wariyaasha madaxweynuhu waxa uu yiri waxaan dhisaynaa isbahaysi in suga amniga marinka Hormuz si shidaalka kala duwan oo halkaas u soo maro maxaa yeelay Iran caalamka oo idil ayay doonta qabatay hadda sicirka shidaalka foostadii shidaalka ciriinka $104 ayay maraysaa marka madaxweyne Trump waxa jirtay sabtidii inuu bartiisa True Social uu soo dhigay qoraal uu ku leeyahay wadamada uu saameynayo marinka Hormuz waa inay gacan naga siiyaan sidii loo sugi lahaa waxa kamid ahaa Shiinaha Ingiriiska South Korea France Japan iyo waliba Ingiriiska waxa yiri wadamadaasi gacanaha naga siiyaan sidii amniga loo sugi lahaa laakiin ilaa ay hadda wadamada Japan iyo Australia iyo Ingiriiska waa ay diideen Shiinaha sidoo kale maxay yeelay markii horeba Iran ayay la safnaayeen waxa yiri anagu Trump wuxuu leeyahay 1% ayaan shidaalka ka helnaa marinka Hormuz laakiin Shiinaha waa ay ku tirsan yihiin 90% shidaalkooda halkaas ay ka helaan laakiin waxa haddana Trump hadda uu ku hanjabaya waxa jirtay booqasho qorshaysnayd oo madaxweyne Trump bish soo socotay Abriil uu ku tagi lahaa Shiinaha marka wuxuu leeyahay hadda booqashadii waan joojinayaa ama dib ayaan u dhigayaa xilli waliba gudiye labada dhinac ka socdo maalmihii la soo dhaafay Paris ay ku shirayeen oo ay ka wada hadlayeen heshiisyada labada madaxweyne ay kala saxiixan doonaan hadda wuxuu ugu hanjabaya xitaa booqashadaasi inuu hakad gelinayo ama gabi ahaanba uu bajoojinayaba haddii Shiinaha arrintan uusan ka soo jawaabin marka Trump wuxuu leeyahay gacanaha naga siiyaan sidii marinka Hormuz loo sugi lahaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay Iran hadda wada hadal ay doonaysaa arrintaas oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu beeniyay waliba si xun ay u doonayaan wada hadal ayuu yiri maxaa yeelay awoodoodii dhinaca militariga iyo waliba difaacooda cirka gabi ahaanba waan baabi'inay madaxdoodiina inta badan waan dilnay marka wuxuu leeyahay xoogaa awood yar ku hartay wali way rafanayaan macnaha oo ay dagaalamayaan laakiin waxa uu leeyahay waan ka xoog badina waayahay dagaalkan muxuu u sii socdaa Trump haddii aad ka xoog badisay Iran arrinta su'aasha la isweydiinayo waa taasi marka waxa jirta sidoo kale in Trump uu leeyahay marka wadamadaasi waa inay gacan naga siiyaan sidii aan marinka Hormuz aan u sugi lahayn laakiin hadda Australia iyo Japan iyo Ingiriiskuba arrintaasi waa ay diideen ra'iisul wasaaraha Ingiriiska hadalkiisa waan idin maqashiin doonaa laakiin waxa uu sidoo kale leeyahay Trump NATO waa inay gacan naga siiyaan maxaa yeelay dagaalka Ukraine ayaan gacan ka siinay arrintaasina run maahan Trump waa kii wadamada Yurub uga baxay dagaalka markii uu isagu madaxweynaha noqdo xitaa yiri hubka adinkan idinka iibinayna NATO kadibna ka sii iibiya marka Trump waxa uu leeyahay haddii NATO aysan ka soo jawaabin arrintan amaba ay diidaan arrintaasi waxay saameyn ku yeelan doontaa mustaqbalka NATO Trump markii horeba ula booca ayuu ugu kutubayay NATO waxa uu dhahay lacagta ugu badan anaga ayaa ku bixina Mareykanka hadda marka haddii ay diidaan arrintan inay garab ku siiyaan sugidda amniga marinka Hormuz waxay u badan tahay inuu yiraahdo Mareykanka NATO gabi ahaanba waa isaga baxay arrintaasina way dhici doontaa ogaada haddaba Trump oo diyaaradda Air Force One waliba xitaa guuxa la maqlaya raalli ahaada codka fasiix maahan bal ila daawada waxyaabo wadamada qaabka ugu baaqaya xitaa su'aala la weydiiyo waxa la yiri ilaa hadda wadamo ka soo jawaaba ma jiraan maya ayuu yiri waayo xalay iyo maanta ayaanba wadamada bilownay inaan la hadalno laakiin wali wax nooga soo jawaabay ma jiraan Trump wuxuu ka yiri arrintaasi baaqa oo wadamadaasi u diray We're talking to countries about policing the straits because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help, we'll work with them. Militarily, as far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready.
just on what I'm hearing. They want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be ready at some point. But we're doing very well with respect to that whole situation in Iran. We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. And if we don't, that's great too. But remember, like as an example, in many cases, they're NATO countries. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. That, by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Sir Keir Starmer ayaa shir jaraa'id qabtay waxaana uu sheegay in dagaalkan oo toddobaadkii saddexaad galay anaga wuxuu yiri way caddahay in ujeedadeena maxaa yeelay waxaan anagu diiradda saareynaa amniga qaranka iyo waliba danta shacabkeena ayaan diiradda saareynaa wuxuu yiri wax kasto tilaabo ayaan qaadaynaa si aan u difaacno dadkeena iyo waliba danaheena wuxuu yiri nalukuma jiidi karo oo deeqa lugaha nalooma gelin karo dagaal ballaaran anaga lugaha ma naloo gelin karo waa arintaasi si cad ayuu Trump u leeyahay anagu hawshaas kama qayb gali karno aad noogu baaqayso waxa uu sheegay sidoo kale in markastaba muhiimadda ay siinayaan sidii dagaalkan loo joojin lahaa maxaa yeelay wuxuu yiri deganaanshaha iyo amniga iyo kala dambeynta gobolka ayaa markastaba muhiima waxaanu xaqiijiyay in muhiim ay tahay dagaalkan sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo gabagabeeyo maxaa yeelay sicirka raashinka iyo shidaalka iyo wax kasta ayaa ku xiran ayuu yiri marka waxaan ku dadaalaynaa sidii in wadamada gobolka dadkeena aan uga soo qaadan lahayn isla markaana Iran sidoo kale looga difaaci lahaa wadamada gobolka laakiin waxa uu sheegay in dagaalkan marnaba aan lugaha loo gelin karin oo aan lagu jiidi karin oo aysan ka qayb galeynin waa kan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo shirkiisa jaraa'id arrintaas uga hadlay The conflict in Iran and across the Middle East is now entering its third week. So I want to take a moment to set out how we're responding to this crisis and standing up for the British people. Our priority is always the national interest. And so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbours. I want to see an end to this war as quickly as possible, because the longer it goes on, the more dangerous the situation becomes, and the worse it is for the cost of living back here at home. dhinaca kale sidoo kale madaxweyne Trump ayaa waxa la weydiiyay dagaalkan goorma ayaad rajaynaysaa inuu istaago wuxuu yiri markaan anigu dareemo lafahigu marka ay dareemaan ayuu dagaalkan istaagaya sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu hadda leeyahay marka wadamadaasi waa in gacan ay naga siiyaan sidii marinka Hormuz amnigiisa loo sugo macnaha waxa muuqata anagu gacan ayaan ka taagnaa Trump waa kii hore u yiri maraakiibteena dagaalka ayaa soo galbinaysa maraakiibta halkaas soo marayso ma aysan suura gelin ciidamo 5,000 ka badan waa kii hadda u diray bariga dhexe oo hadda la leeyahay 2,000 oo kale ayaaba lagu darayaa marka wali arrimahaasi waxba ay ka qaban la yihiin Iran iyo waliba sidii marinkaasi Hormuz loo furi lahaa Iran waxay tiri marinka Hormuz caalamka kama wada xirna waxa uu ka wada xiran yahay wadamada cadawgeena ee nagu soo duulay waa Mareykanka iyo Israa'iil iyo wadamadii kale oo garab siiya laakiin Shiinaha Ruushka iyo wadamadan kale oo Yurub waa ay mari karaan maxaa yeelay anagu dagaal kula ma jirno sidaasi ayaa dawladda Iran ay tiri sidoo kale dawladda Iran afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isaguna waxa uu sheegay in mas'uuliyadda dhamaanba weerarada bariga dhexe ka dhacaya gaar ahaan wadamada Khaliijka maxaa yeelay wuxuu yiri diyaaradaha drone-iska ee shaahidka Israa'iil iyo Mareykanku waa ay koobiyeysteen xitaa waxay leeyihiin uu yiri Mareykanka ay gaari karaan laakiin diyaaradaha Mareykan ma gaari karaan sidaas darteed waxa uu leeyahay wadamadaasi waa inay baaritaan ku sameeyaan maxaa yeelay calankeena waa la isticmaalayaa diyaaradaheena iyo la koobiyeystana waa la isticmaalayaa sidaas ayaa marka Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay doonayaan in wadamadaasi bariga dhexe ay dagaalka ay soo galiyaan waxaan ognahay ilaa hadda Israa'iil iyo Mareykanku waa ku guuldareysteen in
wadamada bariga dhexe dagaalka ay soo galaan oo iyagu ilaa hadda dagaal ma aysan soo gelin haddana wadamadii NATO iyo China iyo sidoo kale waa kan isku dayaya Trump in Mareykanka Hormuz ay yimaadaan oo maraakiib dagaal ay u soo diraan iyagina ay diidan yihiin marka Iran waxay leedahay wadamada bariga dhexe arrintaasi ha baaraan maxaa yeelay annagu dhammaanba weeraradaasi mas'uul kama ma inkirayaan in weeraro ay jiraan laakiin dhammaantood waxay leeyihiin mas'uul kama nihin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay hadalkii Trump ahaa Iran waxa ay doonaysaa wada hadal iyo xabad joojin wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi wuxuu yiri maya annaguna xabad joojin ma aanan weydiisanin sidoo kalena wada hadal ma aanan weydiisanin laakiin annagu waan istifaacaynaa ilaa iyo inta ay nala gaarto isagoo arrimahaas ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu yiri We never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes. ugu dambeyntii Trump golihiisa wasiirada waxaan ognahay dhammaantood dad daacad u ah inuu soo xushay oo kulligood wada yes man ah hadda arrintan la yaab kale ogaada wargeyska Wall Street Journal ayaa waxa uu qoray in Trump kabaha uu jecel yahay inuu gashto oo shirkadda la yiraahdo Florsheim shoe company ay soo saarto in dhammaanba wasiiradiisa kuwa ragga ah uu u dalbay xitaa isaga oo aan weydiinin numberka ay qaataan ayuu u dalbay marka kaba ayaa lagu keenayaa haddii ay kula ekaadaanna waa kula ekaadaan haddii xitaa ay kaa weyn yihiinna waad gashanaysaa bal ila eega sawirkan waa wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio kabaha uu wato Trump ayaa u dalbay waa ay ka weyn yihiin hebel kaba ka weyn loo geliyay maqli jirteen ninkan kaba ka weyn ayaa loo geliyay xitaa waxa wargeysku uu qorayaa kuma dhiiran garaan marka ay imaanayaan aqalka cad inay kabahaasi ka soo tagaan Trump waa uu fiirinaya marka waa in ay wataan Trump kabahan uu u dalbay isaga ayaa u dalbay maxaa yeelay isaga ayaa jecel inuu qaato sidaas darteed numberka qof waliba uu qaato ma uusan weydiinin uu isaga dalbay marka waxa uu u keenayaa box kabihi ay ku jiraan oo Trump uu soo saxiixa loo keenaya wasiirkii ma dhihi kara kabahan ilama eka wuxuu ku qasban yahay inuu soo gashto iyaga oo ka waaweyn kabihi